xilli dhawaan maamulka gobolka Banaadir uu sheegay in degmooyinka gobolka Banaadir guryaha ku yaala laga qaadi doono canshuuraha guryaha isla markaana dhawaan maamulka gobolka Banaadir uu bilaabi doono. Maanta ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab waxa uu kormeer ku soo sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee ololaha canshuurta ay ka bilaabanayso. Gudoomiyaha ayaa waxa warbixin ka dhageystay waaxaha canshuuraha iyo maamulada degmooyinkaasi. Dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa booqday wadooyin dib u dayactir iyo dhismo uu ka socdo iyo xarumaha lagu nasto ee ku yaala magaalada Muqdisho sida xarunta daljirka Daasoon. gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo ugu dambeyn wariyaasha kula hadlay xarunta daljirka Daasoon ayaa ka warbixiyay kormeerkiisii maanta iyo waxyaabaha uu ugu kuurgalayay. Waxaan sameynay kormeer aan ku sameynay ilaa iyo 3 degmo. degmada waa Bari, Boondheere iyo Shangaande. waxaan hogaaminayay guddigii 3 kacleynta ee maamulka gobolka Banaadir. waxaan u kuurgulaynay howlaha nadaafadda gobolka iyo beelada magaalada iyo howlaha guud ahaan dakhli ururinta caasimadda gaar ahaan mashruuci canshuuraha guryaha يعني همين دويتو أن كل واقعنا إن مقالة مقدسة وكبلامه وبالفعل وبلامي مشروع عاص رنتي للربع إنه قدر جليو لو أنا أستي مشروع ذلك هذا الدسو ومدعونين وكباقي جون لبض كنا أفرت بنكي ونقول اسمه قال كدولة ده سي عمر هذا اللي دوني إن يعني بيش صاص على برتماده لو قلنا يحدقه جد كمهم كأه loo yaqaano jidka wadnaha magaalada Muqdisho hadii la yiraahdo. magaalada Muqdisho ayaa hadda u muuqanaysa inay ka soo kabanayso dagaallo colaado ragaadii muddo ka badan 20 sano kuwaas oo dadka Soomaaliyeed gacmahooda ay ugu burburiyeen magaaladan caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Cabdinaasir Maxamed Cali, Cable TV, magaalada Muqdisho.